shirkadda diyaaradaha dalka Kenya ee Kenya Airways ayaa joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee iskaga kala gooshi jirtay magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho. Gudoomiyaha fulinta shirkadda Kenya Airways Sebastian Mukazis ayaa sheegay inay joojiyeen qorshihii duulimaadka tooska ahaa ee iskaga kala gooshi jireen wadamada Kenya iyo Soomaaliya. qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay inay hakinayaan ilaa iyo muddo duulimaadyadaasi kadib markii ay soo wajaheen dib u dhacyo ku aadan sidii loo heli lahaa baahiyaha farsamo ee dheeraadka ah ee dhinaca duulimaadka. Gudoomiyaha fulinta shirkadda Kenya Airways Sebastian waxa uu intaasi ku daray inaysan sameyn doonin duulimaadyada tooska ah ee Nairobi iyo Muqdisho ilaa amar dambe oo dheeraada. Shirkadda diyaaradaha Kenya Airways oo ay leedahay dowladda Kenya waxa ay horay u shaacisay in duulimaadyadaasi ay bilaaban doonaan 15 bishii November ee aynu soo dhaafnay. Diyaarad nooceedu uu yahay Bombardier Dash 8 Q400 ayaa la qorsheynayay in loo adeegsado duulimaadyada Kenya Airways ee iskaga kala gooshi lahaa garoomada Aadan Cadde International iyo Jomo Kenyatta, iyadoo qiimaha tigidhkaasi duulimaadka Muqdisho iyo Nairobi uu ku kacay lacag gaaraysa $403. dib u dhigista qorshaha duulimaadka diyaaradda shirkadda Kenya Airways ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo dalalka Djibouti, Burundi iyo South Sudan ay ka gaabsadeen qorshe shirkadda Kenya Airways ay ku dooneysay inay duulimaadyo noocaasi ay ka bilaabaan caasimadaha dalalkaasi. Gudoomiyaha fulinta shirkadda Kenya Airways Sebastian oo dhawaan khudbad ka jeedinayay baarlamaanka wadanka Kenya waxa uu sheegay in sababo siyaasadeed ay ka dambeeyaan diidmada qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika ay kaga mamnuuceen duulimaadkooda diyaaradda Kenya Airways.